السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena xogsida production. Maanta waxaan qaadan doonaa casharka aynu qaadanayno maanta waxa weeye sida shaashada computerka loo duubo ama shaashada laptopka loo duubo adigoo adeegsanaya programka OBS Studio. Markaad programka soo gashid aad soo kicisid Chrome-ka waxaad soo furaysaa wajahad cusub aad soo furaysaa kadib waxaad ku qoraysaa waxaad search garanaysaa Google OBS Studio waa kaas oo free OBS Studio free baad download ku dhufanaysaa. Markaad halkan timaado waxaa jira website fara badan oo Wikia tusaale website-ka 64bit last 2022 uu yahay. Waxaa jira oo kale website kale oo fara badan oo kale 71.3 waxaa soo website oo kale oo dhan OBS ka waa wada Wiki, laakiin waxaad ku garanaysaa ama aad garanaysaa inuu ka ugu horeeya uu yahay website-kii saxda shirkadda soo saartay programkan uu leedahay. Tusaale halka waxaad ku aragtaa OBS, halka waxaad ku aragtaa obsproject.com waa website-ka saxda halka website-ka kalena ay magaca kale leeyihiin. halkan kale waxaad ku aragtaa website-kan kale waxaad ku aragtaa website-ka kale waxaad ku aragtaa website-ka kale filehorse.com. kuwa kale oo dhan waa la mid waa kuwa ka download baa ku qoran. kan kale waxaad ku qoran waa la wada mid walba waxa ku qoran wax kale magac kale, laakiin ka saxda waa ka helgaraysan OBS Studio project-ga ama website-ka saxda ah shirkaduna waa ka mar walba waxaad eeganaysaa obsproject.com. sidoo kalena linkiga waxaan idin soo dhigayaa description-ka hoose idin soo dhigayaa. waxaad ku dhufanaysaa OBS Studio ama linkiga ugu horeeya kuu soo baxa wuxuu ku keenayaa daaqadan ku keenayaa marka uu yahay ka saxda OBS Open Product Software buu ku keenayaa. waxaad arkaysaa inaad ku isticmaali karto saddexdan Linux, Mac iyo Windows. hadda kan u baahanay inaga waa Windows. markaad ku dhufatid Windows uu wareegayaa ku soo download inaga maadaama inoo soo download inoogu jiro kan hadda aynu ku duubaynaa casharkan uu yahay markuu noo soo download install aad tiraahi wuxuu ku keenayaa daaqadan buu ku keenayaa. daaqadan markuu ku keeno daaqadan baan shaqadeyn u baahan. markaad daaqadan ku keeno uu kuu soo furo daaqadan buu ku keenayaa. daaqadan uu ku keeno waxaad tegaysaa source meeshaas ay ku qoran tahay source markaad tagto waxaad dooranaysaa ishaas baad soo furaysaa. ishaa marka soo furto waxaad tegaysaa display capture marka tigtid waxaad tegaysaa waad aragtaa halkaas waxa kugu qoran create new. marka ku qorantay waxa kugu qoran magacii uu kugu qoray. hadda halka magaca ka bedelaysa magac kale aad bixinaysaa ka wada aragtaa display capture ku qoran tahay. hadda magac ka bedelaysa magac kale aad bixinaysid waa option furan. haddii kalena sidiisa ku dhaafaysaa saadan sidiisa ku dhaafnayno ama magac kale buu bixinaa soo qaad magac kale inuu bixinay xogside production markaan ku qorno waxaan odhanaynaa waa inaad halkaasi tagto ku saarnaataa make sure visible waa in halkaasi tagto ku saarnaataa si codsigaagan ama qoraalkan create-kan aad samaysay ama select source-kan aad dooratay uu ku noqdo data lagu diiwaangeliyo. marka oo ka tiraaho wuxuu keenayaa daaqadan uu keenayaa. daaqadan markuu keeno daaqadan waxaad ka dooranaysaa cabirkaad ka dooranaysaa. cabirku halkaas inuu siiyay waa 1366 lagu dhuftay 768. saad cabirka halkan aad u aragto inuu cabirka shaashada laptopkaaga yahay ama computerkaaga waad iska soo laabaysaa. waxaad tegaysaa halkan baad klik odhanaysaa shaashada klik odhanaysaa waxaad tegaysaa display setting baad tegaysaa. display setting markaad gasho waxaad soo eegaysaa cabirka shaashadaada. igu celi
okay markaad soo gasho displayga waxaad arkaysaa waa kan cabirka halkaas kaaga soo saaraya display resolution ay tegaysaa resolution bay tegaysaa display resolution waxaad arkaysaa cabirkii halkan intuu yahay cabirka saxda cabiro fara badan oo kala jira oo shashadu ay qaadanayso ama aqbalayso soo laakiin waxaad eegaysaa cabirkaaga saxda shashadu intuu yahay waa intii aan kusoo aragnay xaggii hore waa 1366768 soo waad kasoo laabaysaa marka soo laabto waxaad kusoo noqonaysaa programkaaga cabirka halkan uu nagu siiyey halkan aad ka xulanaysaa haddii aanu cabirku isagii ahayn monitorka ama cabirka shashada aanu ahayn soo markaan labada cabir aad iswaafajisid okay baad odhanaysaa kadib si aad u bilowdid markaasi casharkii ama duubistii waxaad imanaysaa halkan stop record ku qoran tahay oo iminka inagu aynu duubaynaa markaynu duubayno start baa ku qoran record ama bilow duubitaanka haddana waxaa ku qoran stop record jooji duubitaanka saasoo tala tahay markaad duubtid aad ku dhufatid recording start record uu duubayaa hodhow markaad ku dhufatid stop markaan ku dhufanayna uu joojinayaa duubitaankii uu shashadeena wixii ka dhacaya gudaheeda uu duubayay sidaas lamid ah halkan waxaad ka arkaysaa source inta waxay aad duubtay haddana uu intaan imika casharkan diyaarinayay 3 jeer baa wax ku duubay oo markaan example ku bixinayno wax sida production ku qorno waa ka u dambeeya halka labada kalena uu yahay midna display ka jirkan uu yahay casharkan aan hadda duubayno iyo audio aan ku hagaajinay intaan casharka aynaan gelin soo waxaan filayaa inaad ka faa'iideen barnaamijkan OBS sidoo kalena aan linkiisa waxaan idin soo dhigayaa description-ka hoose commentiga koobaad baan idin soo dhigayaaba waana sidaan rajaynayo programka ugu wanaagsan ee la isticmaalo last updatekiisana uu la socdo uu daily yahay oo maalin kasta update cusub ama uu qaato sidoo markaas barnaamijkaas inaad ka faa'iidaysataan OBS-ka wixii yaabihii hore kuugu jira oo sidii kale ama programadii kale kuugu jiray ama biska kale kuugu jiray aad ku duubi jirtay shashadana laptopkana aad iska dayso sababtoo ah programkan uu ka wanaagsan yahay sidoo kalena markastoo aanad Windows isticmaalaynin ama computerka Windows aad ku isticmaalaynin aad isticmaalayso Linux waad ku isticmaali kartaa waad ku duubi kartaa sidoo kale Mac OS-ka waa ku qaadanaya haddaad leedahay smartphones iyo haddaad leedahay iPhones waad ku duubi kartaa waad ku soo degi kartaa casharka intaas uu ku eegyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.